بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله يثنى لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أول الإله باب مهد اسكالي هل كان ما أنت وحان كجاه الله سياسة الصومالية يعني تاريخ ذا كصور رب أنت كذب سياسة ما أنت الصومالية أنا روك الله أنا جو أنا بدون بدل وأدي وذا قرار إنسان لحلنك حرية دمالتها قادنية ما أنت كنحله صومالي لمرة تبى وسون نابيني وهذا اللو ساري لبضع الرتمد وحا اللو رجل إنا الداروب منا إنا هوية اللو رجل لبضع الرتي كوب يكلحنا كاسنا أون ما تمر إنه قبل نماذا إني كمر إنه سومالي وحي قارسي الرير برير إنه كنقوه قويس ما قويس راعي واي لبضع الرير بان القارسي هوشاس وحال ما السومالي وينو شيقيا ميل كستاي جوجتبا إن جدول كان لبدلوه reerka anigu reer baadiya lahayo dhaqanka reer miyiga aan aqaana hadii reerka xerada xooluhu ay shilin ku gasho oo takar ku gasho oo ku abaarsadaan oo xashi iyo cudur ku dhasho waa loo diga rogaa waxa la yaabaa siyaasadda Soomaaliya aanu diga rogno ha loo dhiibo digil iyo marifle beesha aadariska dadkaas ha loo dhiibo ha laga ilaaliyo xukunka madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha haweeye daaro bal in Soomaali si uu u cifato waayo waxay noqdeen laba rati oo qoora oo isfiirsanaya ayagu laba rati oo qoorana oo cadda qaba oo dadki ayagiina isma ogola dadki kalena ma ogola ma faatay maanta halkaasaan marayna waa 16 sano waa meeshan ka gaarinayn barwaaqo soor oo shidaal la soo bixi lahay oo dhaqaale la soo bixi lahay oo dalkeena bad iyo biriba wayna deeqayay aan difaacan lahay haddii taa laga tagi waayo oo lacala ay noqoto jinisidayga in lagu celiyo awrkii ina daarooda ay awrkii ina hawiyaha in lagu celiyo laba saddex qolaha laga guuro hawiyaha laga guuro hiraab daaroodna kabla laxbeen nimanka la yiraahdo ma jeerteen iyo marixaan laga guuro oo yaa loo guuraa ha loo guuro leelkas dhulbahante warsangeli awrtable ha loo guuro haweenaha loo guuro sheekhaal xawaadle maxaa ku yiraahdaayay maaragtay gaal jecel maxaa ku gundhabe dadka ha loo guuro oo xilka ha loo dhiib oo lagu tijaabiyo anigu maanta taladaasaan soo jeedinayaa Soomaaliya bal fakirkiina ka soo dhiibta waa talo cusub waa hawl cusub magarateen waxaa la helayaa dad diinta inagu haga oo wanaagsan oo sharaf leh waxaan intaa ku darayaa oo kale dadka aan tiriyey dadka ugu tayada roon oo maanta dir reerka la yiraahdo oo diro Soomaali ugu badan madaxda u ah hadday tan Itoobiya degta tahay hadday tan Ciise tahay Djibouti hadday tan Soomaaliya degtay waa isaaqow waxaan idiin sheegayaa maalin walba laba wiil oo cadaan ah oo aad lacag siiseen اعتراف يدين مايا لما هرجيسة تميد اعتراف يدين مايا دات كانوا وهاي شيء بنت ما أنت وحندين دورنا مدحوينها الصومالية إساق بان كدجينا أنا قاعدين كدجينا أنا قاربنا كاليا دلك يدات كبقب صدا أنت دارود يهوي النسوة دي إلا أجنا وضع يدك أنت نورها يعني وايد كتاجرية مقال مدح هدار بتاع وايد السيرين madaxweynaha iyo magaalo madaxda intaba way isugu kindarayna lacala shayda ku yaali Soomaali indheedii waa la yiri ari indhihi waa riyaal la yiri indhihi Soomaaliya tiine kaalaya xaqiiqiyan waan ogahay waxaad ka cabsanaysaa dambas baqtiyay baad ka cabsanaysaa oo waa maxay dambaskaas daarood baad u qabtaan inuu nool yahay dhulbaanta hadii la taageerayo laga doonayo ninka la yiraahdo Cabdiraxmaan Maxamed Cabdi حاشي هلو دولو عبد الرحمن محمد حاشي محمد عبد حاشي نيكاس هلا راديو إشارة كو أرك نيكاس أركن ما أرك وجهي سلام ما قال ولا جينا ما مقال ما أنا أرك إشارة الله يقطس هدينو البهت اللي قرر راديني ما فات واحد يلي ولا ليالو Soomaali bahalo digarogo kaadi badan waa loo gogol badiyaa bali warmeesha maanta ina daarood iyo haweenna gaarsiiyeen waa aragtaane haddaan dir iyo aadaris iyo loo dhiibaynin iyo digil iyo mirifle
يا بالهراب إيوه هرتيجي المجرتين هلا إلالي يا مريحان ما فهمتي شرير هلو ديبا وأقول الله قبوي هلو ديبا وأقول الله ما فهمت عاد كمريحان بحي اللي يري هذا غير حمر oo la yiraahdo barawaaniinta oo dadkii ilbaxnimada iyo Soomaalinimada iyo laga soo gaaray xadaarada magaalada Haloodii laakiin laba wiil oo leena Landera iyo ana Landera waa waxa halka ina dhigay ma fahanti garaadadii daraawiishtii oo xurriyadda Soomaaliya dhaliyay oo hagaajiyay daarood hadii laga rabo ayaka iyo leelka saa loo doon hawiye hadii laga rabo gaal jecel iyo xawaadle iyo shaqaalaha loo doon anuu taladaasaan soo jeediyay maanta bal waxa ka soo baxa oo Soomaali igu taageertay ama igu diidana waa arki doonaa waana barnaamij taxana ah oo maalin walba rabo inaan ka hadlo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulilaahi wa lillahi wa salaatu wa salaam ala rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam awwalun ilaahi baa mahad iskale halkaan maanta waxaan kaga hadlayaa siyaasadda Soomaaliya yaan taariikhdeeda ka soo warramo inta kadib siyaasadda maanta Soomaaliya aanu ka hadlayo anigoo aan nabadoon bedel oo aad wada garanaysaan lixdankii xurriyadda maalintaan qaadanay iyo maanta inta ka dhaxle Soomaali laba ratiba u soo dhaabinayay oo haamaha loo saaray labada rati mid waxa loo oran jiray in daaro midna in hawiya loo oran jiray labadii rati koob iyo lixdanka sano oo maanta marayno gobonnimadeena ka marayno Soomaali waxay gaarsiiyeen reer bar reer inuu ka go'o qoysba qoys raaci waayo labada reer baan gaarsiiyay hawshaas waxaan maanta Soomaali weyn u sheegayaa meel kasta ay joogtaba in jadwalka la bedelo reerkan uu reer baadiyaan hayo dhaqanka reer miyigaana qaana haddii reerka xerada xooluhu ay shilin ku gasho oo takar ku gasho oo ku abaarsadaan oo cashi iyo cudur ku dhasho waa loo diga rogaa waxa leeyahay maanta siyaasadda Soomaaliya aanu diga rogno ha loo dhiibo digil iyo marifle beesha aadariska dadkaas ha loo dhiibo ha laga ilaaliyo xukunka madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha hawiye iyo daaro bal in Soomaali si uu u cifato waayo waxay noqdeen laba rati oo qoora oo isfiirsanaya ayagu laba rati oo qoorana oo cadda qaba oo dadkii ayagiina isma ogola dadkii kalena ma ogola ma fahanteen maanta halkaasaan marayna waa 60 sano waa meeshan ka gaarinayn barwaaqa soor oo shidaal la soo bixi lahay oo dhaqaale la soo bixi lahay oo dalkeenna bad iyo biriba wayna deeqayay aan difaacan lahay haddii taa laga tagi waayo oo lacala ay noqoto jinisidayga in lagu celiyo awrkii in daarooda ay awrkii in hawiyaha in lagu celiyo laba saddex qolaha laga guuro hawiyaha laga guuro hiraab daaroodna kabla laxbeen nimanka la yiraahdo ma jeerteen iyo marixaan laga guuro oo yaa loo guuraa ha loo guuro leelkas dhulbahante warsageli awrtable ha loo guuro haweena ha loo guuro sheekhaal xawaadle maxaa ku yiraahdaayay maaragtay gaal jecel maxaa ku gudhabe dadka ha loo guuro oo xilka ha loo dhiib oo lagu tijaabiyo anigu maanta taladaasaan soo jeedinayaa Soomaaliya bal fakirkiina ka soo dhiibta waa talo cusub waa hawl cusub ma garateen waxaa la helayaa dad diinta inagu haga oo wanaagsan oo sharaf leh waxaan intaa ku darayaa oo kale dadka aan tiriyey dadka ugu tayada roon oo maanta dir reerka la yiraahdo oo diro Soomaali ugu badan madaxda u ah hadday tan Itoobiya degta tahay hadday tan Ciise tahay Djibouti hadday tan Soomaaliya degtay waa isaaqow waxaan idiin sheegayaa maalin walba laba wiil oo caddaana oo aad lacag siiseen اعتراف idinsiin maayaan laba hargeysa timid oo اعتراف idinsiin maayaan dadkana waxay u sheegina beenta maanta waxaan idin dooranaynaa madaxweynaha Soomaaliya isaaq baan ka dhigaynaa annaga idin ka dhigayna annaga rabna kaalaya dalka iyo dadkaba qabsada intii daarood iyo hawiyana soo waday in la egna wada idinku inta noolahay anigu waa idinku taageeraya magaalo madaxda haddii rabtaan waa idin siinayna madaxweynaha iyo magaalo madaxda intaba way isugu kin darayna
lacallaa shaydaan ku yaali soomaali indhaheedii waa la yidhi ari indhihii waa riyaa la yidhi indhihii soomaaliyaa tiine kaalaya xaqiiqiyan waan ogahay waxaad ka cabsanaysaa dambas bakhtiyey baad ka cabsanaysaa oo waa maxay dambaskaas daarood baad u qabtaan inuu nool yahay dhulbahante haddii la taageerayo laga doonayo ninka la yidhaahdo cabdiraxmaan maxamed cabdi xaashi ha loo doono cabdiraxmaan maxamed xaashi maxamed cabdi xaashi ninkaas ha la raadiyo inshaaraan ku arkay ninkaas arrinkuma arag wejigiisana ma aqaan weligayna ma maqal mana arag inshaaraan laygu tusa haddii dhulbahante laga raadinayo ma fahante waxaad yeelaysaa walaalayaalow soomaali bal ha loo digarogo kaadi badana waa loo gogolbadiyaa baa layidhi war meesha maanta ina daarood iyo inay hawiyana gaarsiiyaan waa aragtaane haddaan dir iyo aadarisya loo dhiibaynin iyo digil iyo mirifle yah bal hiraab iyo hartigii majeerteen ha laga ilaaliyo iyo mariixaan ma fahante jareer ha loo dhiibo waa oggollahay gabooye ha loo dhiibo waa oggollahay waa oggolla ma fahante cadcadka mariixaanka maxaa la yidhaahdo reer xamar oo la yidhaahdo barawaaniyiinta oo dadkii ilbaxnimada iyo soomaalinimada iyo laga soo gaaray xadaaradda magaalada ha loo dhiibo laakiin laba wiiloo leh anaa laandheeraa iyo anaa laandheeraa waa waxa halkaa ina dhigay ma fahante garaadadii daraawiishtii oo xorriyadda soomaaliya dhaliyey oo hagaajiyey daarood haddii laga rabo ayaka iyo leelkasaha loo doono hawiye haddii laga rabana gaaljecel iyo xawaadle iyo shiiqaal ha loo doono anugu taladaasaan soo jeediyey maanta bal waxa ka soo baxa oo soomaali igu taageerta ama igu diiddana waa arki doonaa waana barnaamij taxana ah oon maalin walba raba inaan ka hadlo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bismi illaahi araxmaani araxiim alxamdu lilah yatnaa lilaahi wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaahi sala allahu alayh wasalam awalun ilaahay baa mahad iskale halkan maanta waxaan kaga hadlayaa siyaasadda soomaaliya yaan taariikhdeeda ka soo warrama intaa kadib siyaasadda maanta soomaaliyaan anugu ka hadlaya anigoo aan nabadoon beddel oo aad i wada garanaysaan lixdankii xorriyadda maalintaan qaadannay iyo maanta inta ka dhexle soomaali laba rati baa u soo dhaabinayay oo haamaha loo saarayey labadaa rati mid waxaa la odhan jiray ina daarood midna ina hawiyaa la odhan jiray labadii rati koob iyo lixdankaa sano oon maanta marayno gobonnimadeennii ka marayno soomaali waxay gaarsiiyeen reerba reer inuu ka go'o qoysba qoys raaci waayo labadaa reer baanan gaarsiiyey hawshaas waxaan maanta soomaali weyn u sheegayaa meel kasta ay joogtaba in jadwalkaa la beddelo reerka anugu reer baadiyaan ahayoo dhaqanka reer miyigaan aqaannaa haddii reerka xerada xooluhu ay shilin ku gasho oo takar ku gasho oo ku abaarsadaan oo cashi iyo cudur ku dhasho waa loo digarogaa waxaan leeyahay maanta siyaasadda soomaaliya aan u digarogno ha loo dhiibo digil iyo mirifle beesha aadariska dadkaas ha loo dhiibo ha laga ilaaliyo xukunka madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha hawiye iyo daarood bal in soomaali si uun u cifato waayo waxay noqdeen laba ratiyoo qoora oo isfiirsanaya iyagu laba ratiyoo qoorana oo cadho qaba oo dadkii ayagiina isma oggola dadkii kalena ma oggola ma fahanteen maanta halkaasaan marayna waa 61 sano waa meeshan ka gaari lahayn barwaaqa soor oo shidaal la soo bixi lahay oo dhaqaale la soo bixi lahay oo dalkeenna bad iyo biriba wayna deeqayaaye aan difaacan lahayn haddii taa laga tegi waayo oo lacalla ay noqoto jinisidayga in lagu celiyo awrkii ina daarooda iyo awrkii ina hawiyaha in lagu celiyo saddex qole ha laga guuro hawiyaha laga guuro hiraab daaroodna kabla laxmeel nimanka la yidhaahdo majeerteen iyo mariixaan ha laga guuro oo yaa loo guuraa ha loo guuro leelkase dhulbahante warsangeli awrtable ha loo guuro haweeney ha loo guuro sheekhaal xawaadle maxaan ku yidhaahdaayey maaragtay gaaljecel maxaan gugundhabe dadkaa ha loo guuro oo xilkii ha loo dhiibo oo ha lagu tijaabiyo anugu maanta taladaasaan soo jeedinayaa soomaaliya bal fakarkiinna ka soo dhiibta waa talo cusub waa hawl cusub ma garateen waxaa la helayaa dad diinta inagu haga
oo wanaagsan oo sharaf leh waxaan intaa ku darayaa oo kale dadka aan tiriyey dadka ugu tayada roon oo maanta dir reerka la yidhaahdo oo diroo Soomaali ugu badan madaxda u ah hadday tan Itoobiya degto tahay hadday tan Ciise tahay Jabuuti hadday tan Soomaaliya degtay waa isaaqow waxaan idiin sheegayaa maalin walba laba wiil oo cadaan ah oo aad lacag siiseen اعتراف idin siin maayaan laba hargeysa timid oo اعتراaf idin siin maayaan dadkana waxay u sheegina beenta maanta waxaan idin dooranaynaa madaxweynaha Soomaaliya isaaq baan ka dhigaynaa annaga idin ka dhigayna annaga rabna kaalaya dalka iyo dadkaba qabsada intii daarood iyo hawiyana soo waday in la egna wada idinku intaan noolahay anigu waa idinku taageeraya magaalo madaxda haddii rabtaan waa idin siinayna madaxweynaha iyo magaalo madaxda intaba way isugu kindarayna lacala shaydaan ku yaali Soomaali indheheedii waa la yiri ari indhihii waa riyaal la yiri indhihii Soomaaliya tiine kaalaya xaqiiqiyan waan ogahay waxaad ka cabsanaysaa dambas baktiyay baad ka cabsanaysaa oo waa maxay dambaskaas daarood baad u qabtaan inuu nool yahay dhulbaanta haddii la taageerayo laga doonayo ninka la yiraahdo Cabdiraxmaan Maxamed Cabdi Xaashi haloo dooro Cabdiraxmaan Maxamed Xaashi محمد عبد حاشي نكاس هلا راديو إشارة كو أركن نكاس أركن ما أرك وجهي سلام ما أقل ولا جينا ما مقل ما أنا أرك إشارة الله يقطس هدينو البنت اللي قرر هديني ما فات واحد يلا يساوي على يالو صوبال بالهلود دقرقو كاتب بدنو اللوجو كل بدي يابلي ورميش ما أنت إن الدارود يني حوينا جارسيا وأرك تاني haddaan dir iyo aadaris iyo loo dhiibaynin iyo digil iyo mirifle ya bal hiraab iyo hartigii majeerteen ha laga ilaaliyo iyo mariixaan ma fahanti jareer ha loo dhiibo waa ogol lahay gabooye ha loo dhiibo waa ogol lahay ma fahanti cadcadka mariixaanka maxay la yidhaahdo reer xamar oo la yidhaahdo barawaaniyiinta oo dadkii ilbaxnimada iyo Soomaalinimada iyo laga soo gaaray xadaaradda magaalada loo dhiib laakiin laba wiil oo leh anaa laandheera waa waxa halka ina dhigay ma fahanti garaadadii daraawiishtii oo xorriyadda Soomaaliya dhaliyay oo hagaajiyay daarood haddii laga rabo ayaka iyo leelka saa loo doono hawiye haddii laga rabana gaal jecel iyo xawaadle iyo shaqaalaha loo doono anigu taladaasaan soo jeediyay maanta bal waxa ka soo baxa oo Soomaali igu taageertay ama igu diidana waa arki doonaa waana barnaamij taxana ah oo maalin walba raba inaan ka hadlo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulilaahi wa lillaahi wasalaatu wassalaamu calaa rasuulillaahi sallallahu alayhi wasallam awwalun ilaahi baa mahad iskale halkaan maanta waxaan kaga hadlayaa siyaasadda Soomaaliya yaan taariikhdeeda ka soo warramo intaa kadib siyaasadda maanta Soomaaliya anigu ka hadlayo anigoo aan nabadoon bedel oo aad wada garanaysaan 60kii xorriyadda maalintaan qaadanay iyo maanta inta ka dhaxle Soomaali laba ratiba u soo dhaabinay oo haamaha loo saaray labada rati mid waxa loo oran jiray in daarood midna in hawiya loo oran jiray labadii rati koob iyo 60 sano oo maanta marayno gobonnimadeena ka marayno Soomaali waxay gaarsiiyeen reer inuu ka go'o qoysba qoys raaci waayo labada reer baan gaarsiiyay hawshaas waxaan maanta Soomaali weyn u sheegayaa meel kasta ay joogtaba in jadwalka la bedelo reerka anigu reer baadiya ahayo dhaqanka reer miyigaana qaana haddii reerka xerada xooluhu ay shilin ku gasho oo takar ku gasho oo ku abaarsadaan oo cashi iyo cudur ku dhasho waa loo diga rogaa waxa leeyahay maanta siyaasadda Soomaaliya aanu diga rogno ha loo dhiibo digil iyo mirifle beesha aadariska dadkaas ha loo dhiibo ha laga ilaaliyo xukunka madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha hawiye iyo daarood bal in Soomaali si uu u cifato waayo waxay noqdeen laba rati oo qoora oo isfiirsanaya ayagu laba rati oo qoorana oo cadda qaba oo dadkii ayagiina isma ogola dadkii kalena ma ogola ma fahanteen
maanta halkaasaan marayna waa 61 sano waa meeshan ka gaari lahayn barwaaqa soor oo shidaal la soo bixi lahay oo dhaqaale la soo bixi lahay oo dalkeenna bad iyo biriba wayna deeqayaaye aan difaacan lahayn haddii taa laga tegi waayo oo lacala ay noqoto jinisidayga in lagu celiyo awrkii in daarooda iyo awrkii in hawiyaha in lagu celiyo laba saddex qolaha laga guuro hawiyaha laga guuro hiraab daaroodna kabla laxmeel nimanka la yiraahdo ma jeerteen iyo marixaan ha laga guuro oo yaa loo guuraa ha loo guuro leelkase dhulbahante warsangeli awrtable ha loo guuro haweenah ha loo guuro sheekhaal xawaadle maxaa ku yiraahdaayay maaragtay gaal jecel maxaa gugundhabe dadka ha loo guuro oo xilka ha loo dhiib oo ha lagu tijaabiyo anigu maanta taladaasaan soo jeedinayaa Soomaaliya bal fakirkiina ka soo dhiibta waa talo cusub waa hawl cusub magarate waxaa la helayaa dad diinta inagu haga oo wanaagsan oo sharaf leh waxaan intaa ku darayaa oo kale dadka aan tiriyey dadka ugu tayada roon oo maanta dir reerka la yiraahdo oo diro Soomaali ugu badan madaxda u ah hadday tan Itoobiya degta tahay hadday tan Ciise tahay Jabuuti hadday tan Soomaaliya degtay waa isaaqow waxaan idiin sheegayaa maalin walba laba wiil oo caddaana oo aad lacag siiseen ictiraaf idin siin maayaan laba hargeysa timid oo ictiraaf idin siin maayaan dadkana waxay u sheegina beenta maanta waxaan idiin dooranaynaa madaxweynaha Soomaaliya isaaq baan ka dhigaynaa annagaa idinka dhigayna annagaa rabna kaalaya dalka iyo dadkaba qabsada intii daarood iyo hawiyana soo waday in la egna wada idinku intaan noolahay anigu waa idinku taageeraya magaalo madaxda haddaan rabtaan waa idin siinayna madaxweynaha iyo magaalo madaxda intaba way isugu kindarayna lacala shaydaan ku yaale Soomaali indheheedii waa la yiri ari indhihii waa riyaal la yiri indhihii Soomaaliya tiine kaalaya xaqiiqiyan waan ogahay waxaad ka cabsanaysaa dambas baktiyay baad ka cabsanaysaa oo waa maxay dambaskaas daarood baad u qabtaan inuu nool yahay dhulbaante haddii la taageerayo laga doonayo ninka la yiraahdo Cabdiraxmaan Maxamed Cabdi Xaashi halo dooro Cabdiraxmaan Maxamed Xaashi محمد عبد حاشي نكاس هلا راديو إشارة كو أركن نكاس أركن ما أرك وجهي سلام ما قال ولا جينا ما مقال ما أنا أرك إشارة الله يقطس هدين البهت اللي قرر هديني ما فات واحد يلا يساوي على يالو سومال بالهلود دقرقو كاتب بدنه ولا كل بديا بالي ورميش ما أنت إن الدارو ديني هوية الجارسية وأرك تاني haddaan dir iyo aad risya loo dhiibaynin iyo digil iyo mirifle ya bal hiraab iyo hartigii ma jeerteen ha laga ilaaliyo iyo marixaan ma faatay jareer ha loo dhiibo waa ogolahay gabooye ha loo dhiibo waa ogolahay ma faatay cadcadka marixaanka maxay la yiraahdo reer xamar oo la yiraahdo barawaaniyiinta oo dadkii ilbaxnimada iyo Soomaalinimada iyo laga soo gaaray xadaaradda magaalada ha loo dhiib laakiin laba wiil oo leh ana laandheera waa waxa halka ayna dhigay ma fahanti garaadadii daraawiishtii oo xorriyadda Soomaaliya dhaliyay oo hagaajiyay daarood haddii laga rabo ayaka iyo leelka saa loo doono hawiye haddii laga rabana gaal jecel iyo xawaadle iyo sheekhaalaha loo doono anigu taladaasaan soo jeediyey maanta bal waxa ka soo baxa oo Soomaali igu taageertay ama igu diidana waa arki doonaa waana barnaamij taxana ah oo maalin walba raba inaan ka hadlo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh